waayahay waxaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaan halka aad nagala socotaan waa Somali American TV haddaba waa barnaamijkii laga magac baxay kaftanka siyaasadda iyo al-xaraari way mahadsan bismillaahir rahmaanir rahiim sida caadadeed marka hore dadka waxaan u soo gudbin doonaa qadar ogeysiis ma qadar iidha kan ugu horeeyo waxa weeye looyaradii dadka Soomaaliyeed u adeegayay oo aad maqli doontaan waxay ku yaalaan gobolka Minnesota dadka ay u hadlayaan ee kiisaskooda ay ka shaqeynayaan waa only dadka jooga marka la nagu celinaa gobolka Minnesota oo kaliya waa sax dadka kale ee gobolada kale jooga ma caawinayaan waxay laakiin gobolada kale oo ay ka caawin karayaan dadka baabuurta taraagada wada darawalada shilalka gala gobol kasta oo Mareykanka kamid ah iyagoo jooga Minnesota ay ka caawin karayaan marka daawasho wanaagsan neb and Hackard waa looyaro isu tagay oo markaasi ka caawinaya arrimaha ay kamid yihiin shilalka baabuurta shaqooyinka lagu dhaawacmo socdaalka iyo safarada arrimaha kale dambiyada ay dadku galaan kuwa qoysaska iyo kuwa meheradaha haddaba kala xidhiidh looyaradaasi aan ku sheegay lambarka shaashada ku qoran si ay markaasi kaaga kaafiyaan ama ay kaaga qanciyaan kiiskaagu sida uu u dhacayo yaasiin waxa kale oo haynaa oo ina jirta Medina Medical Center Medina Medical Clinic oo la furay super وحرنا عصب جيجا مول ku dhaxyaala ay ku dhaxyaala sidii urgent care oo degdeg ba adeegis lagu qabanaya dadka dhoofka iyo socdaalada ku jira iyagana covid test ayay ka helayaan waa dadka meelaha wadamada kala aadaya inay covid iska sii baaraan khaatiirtu waa Soomaali marka alla xiriiraan jigjiga mool ku yeelana daawashanays magacay waxa la yiraahdaa Sahra waxaan kamid ahay dhaqaatiirta ka howlgasha clinic-kan la yiraahdo Medina Medical Clinic ee jigjiga mool ku dhaxyaala waxaan nahay primary care and urgent care waxaan aragnaa caruurta yaryar iyo dadka waaweynba waxaan kala haysanaa specialty endocrinologist sida fertility ragga iyo dumarkaba hormone imbalance dadka sonkorta qaba dadka thyroid ka qaba de welcome faahfaahinta assalaamu calaykum magacayga waa Dr. Saadiyo waxaan joogaa Medina Medical Clinic saysa Dr. Zahra ii sheegtay waa primary care oo an urgent care so ciyaalkan waan aragnaa dadka waaweyn waan aragnaa fertility iyo gabdhaha hormone issue qabana Dr. Zahra ku takhasustay endocrinology weeye shay baarna waan haysanaa so waxaaga oo dhan meeshan baa lagu dhameeynaya dadka baxayana travel consultation baan sameynaa covid testing waan qaadnaa insha Allah nala soo xiriira numberkeena wakaas for more information marka inta imaataana ni sharxeena insha Allah assalaamu calaykum waa garanay waa hagaag intaasna waa intaa waxaynu barnaamijkeena ku eegi doonaa hadba waxa jira baan ku soo qaadanaa socdaalka iyo safarka wafdi ka socda Soomaaliland oo hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo imanaya Washington DC soo socda saacadaha nagu soo foolay wafdiga qaar kamidina way joogaan sida wasiirka arrimaha dibadda oo soo sii joogay halkan marka inkastoo hawlihii aan bilaabin Mareykanka bilaabin haddana qadar yar baynu sii xusi doonaa inagoo dadweynaha la soo socodsiin doonaa meesha arrin marayso iyo xaaladu meesha ku taagantay su'aalka Muuse Biixi ninba si uu qaatay meeshu rablaad ninba wuxuu gelinayaa meeshii uu rabay marka dad badan baa caadifad waxay leeyihiin caadifad ahaan bay dhinaca caadifada ka eegayaanoo markiiba seef labood ayay gelayaan si ay saas u socday qolo kale ka soo horjeedana iyana caadifad ayayna waxaas xukuma jiraan marka su'aalka horta waxaa casmay madaxweynaha iyo wafdigaasi qolada la yiraahdo Heritage Foundation oo Mareykan weeye marka hore waxa u tagay Somaliland rag ka socda Mareykan oo ah shaqaalaha Congress-ka xildhibaanada aqalka sare bawtagi shaqaalahooda ayaa tagay iyo dad arrimaha ka shaqeeya hadii jeer in xiriir u sameeyaan laba wadan oo saasi oo nin Suudaani asalkiisu yahay uu madax u ka yahay waa saasi arrimaha noocaas oo kala waxa lagu kala qaataa lacag baa lagu kala gurtaa مثلا هاوشن أو كله مركل الله صار لما يو سومالان إلى 2 مليون دولار أي الخرج كرني أنا بحيان سومالان تبحنس أي بحنس من هالكي مادان إلا سكين برا مريكان 2 مليون باع كاوريزا أي كاوريز خص بدني وخرج كاو حقاتا ninka Suudaaniga ka shaqeynayno iyo qolada u dhaxaysa
ayaa qaata waa wax caadiya oo iska process la maraa waxaa iyaduna jirta istiraatiiji dhinaca dekada berbera ah oo ay danaynayaan Mareykanku in iyadana foxka la saaro oo la yiraahdo Horn of Africa ama geeska Africa waxa hareeyay imika oo saameyn weyn ku leh dawladda Shiinaha Shiinihii baa wuxuu kula jiraa tartan ballaaran Mareykanka dhinaca Africa marka Africa meelo badan ayuu hantiyay marka in geeska Africa marka Djibouti Mareykanka jooga Shiinihii baa garab taagan isaguna ودون كل اسبوع سنة يا إن مركا حديد دول لا سميو سومالان أو لدنيو لنعا أن بربرة أيا أيضا ماشى كتشرته وح هذا أي سميسي سومالان إنه غالبا قلانقل في عن ملف في عن بكتورته أي قشي قلانقل كاسو حويان إن صاحبك كسبتي سيدنا وهذا مستقبلك أي كوفلان لكن سؤالك معها سؤالك أن كدونا إني إن لنا قصة معها وقرانقلك ووظيقة ذي لومري إن أتكسبتد صاحبه هذا كود دفاعي كرا مركز سيدا صح للواقع وسيدا أن وفد جنوب اللاني لوري توقف أيوك كومي هو أساسي وحكوش ترتقن عصته إيو وسيرين ولا السعودية إلى الذهب شيل باصعدا أيوه وريا وديدي بقطع إلى إن أو سعيد ووري قناع صدر جيبوتي أيام كوجا نكا مركي دمبنا سومالان بوجس حاجة سومالان أيو سوون سامي ويبوك ليه سومالان قلت أنت هسه بيش كتيرته وأساسي لبردنا dad Soomaaliland taageersan iyo dadka soo horjeeda wali ayaa meesha isugu tagi doona isku hordiyay doona banaan baxyo ka dhana wafdiga Muuse Biixi hogaaminayo ayaa iyaguna meesha ka jira oo ka dhici doona dadka way u soo gudbin doona labada dhinacba wixii ay xaaladdu ay noqoto labada dhinac wala soo gudbiyo labada dhinac hal cilad oo Soomaaliland haysata waan rabaa in halkan ka sheego dhibaatada haysta weeye waxaa lagu saleeyay reer Soomaaliland erey ay isticmaalaan oo nacayb فيصل وراء هذا ولا نلعبيها إن على ورن عدا هذا ولا نلعبيه وكور فافتها ولا نلعبيها موسى بيحبها هذا عدوين أيله وصد الصنو إن كانوا سوما شيئين ور عادي إنه موسى بيحي إيمانه يو واشنطن ما حبها كتير ماي نلعبيه كونه عاد فضة إلى أي إسكده يعني oo buunbuuninta shay caadi ah in marqo hadii erey Soomaaliland ay ku jirto idaacad ay ka baxdo iyadoo af Ingiriisi waxay aaminsan 80% dadku in la ictiraafay hadii nin af Ingiriisi ku hadlay oo Soomaaliland soo qaado xukule wallahi billahi meel kaas la soo saaray bal waxay nagu haysaday marka waxa weeye ictiraafku dadku ictiraafku waa meeshiisa laakiin adduunyada oo dhan ayaa xiriir ka dhaxeeya oo de maanta waa one village tuuleer baa loo wala iswada ogyahay xaaladda lama oran karayo Soomaaliland baa markiiba wafdigii aan iman ay wax leeyihiin baasaboorda istaan waa kullu waa Soomaaliland baasaboorka Soomaaliland baa shaqeeyay wali halka isla gaarin wanaga dheereeyay marka dadkan dheeran ictiraafka kadib wixii dhici lahaa ay sii sheegayaan ictiraafka kadib waxa kamid ah baasaboorada darma dawladdu u sheegtay ictiraaf kadib ay ka sii hadlayaan dadkii موسى وشيغميت marka hadalkii ugu dhacay waxa weeye inagu nacaayb iyo jacayl midna ma jiro inagu waxaan gudbinaynaa wixii sax Muuse yimi uu baxay Muuse yimi hebel baa yimi wafdi baa xaga tagay cidina ma qarin sabab uu yimaadani waxa sabab yimaad Axmed ninkii marka khiyaali doonay ama doonay inuu iska indhatiro xaqiiqda durbaan kala garaaco isaga garaac meel laga garaacayo taas waa taa iyo rafaniya ayaan ku hayaa waasaas فيديو إنه صفّل مدحين مسبح بهذلي تضواتك يوكرين سيدي الله ينوق علي أي الله قلبي بلورته ولي بقى خراشة كلا دنتين ولي بقى خسارة مركز لقى هذلي سيدي الله ينوق علي أنا كخسارة بدنا نقول يوكرين محمد حين سلوك راعي سيدي الله راعي يا مسلم فلك لو داوض أيه فيلم الدجال كله بعد أيه فيلم كمده إنه داوود بعد داوود مركا روايات كلا فيديو مسعودين دولا أيه
madaxweynuhu waa korneel ciidamada abuha ciidamadu ciidanka cirka wali ciidanku haddana maanta wuxuu dadkiisu u sheegay wuxuu shacabku sheegay aakagii dubaabada قرين AK لنا AK 47 in Ukraine اسمه Ukraine بس مش يجري روس بقى اسمه والله قوس كان خلطبين وانا حدود كيف كل جري وانا عيدم وانا باشي سوي تخان ملنا اي ملا سو halkaas ka yimid markaas filmkaas aynu daawano madaxweynaha maanta adduunka oo dhan wuxuu ka hadlayaa adduunka meel kasta caalamka oo dhan Ukraine dagaal ka socda idina ma filayeen in Ukraine ay xajiso 12 maalmood ciidanka Ruushka oo la ordaro waa ka adduunka wuxuu Ukraine waxay noqotay qof dadka waxa la yiraahdaa waxa jira inamada markay la cadawayaan ciyaar ama gabiga ama kuda ciyaaraan mid baa jira gaaban oo subaxa oo inamada toobu ka weyn oo ay wada yara moodiyaan oo haddii kuda ciyaarayaan la jidiyada ku taas ka weyn haddii la gabayaan in wada la gabo laga yaabo soo wada weyn oo arrinta ku xijira oo subaxa ciidanka Ukraine wuxuu ka mid yahay ciidamada ugu daaweyn adduunka waxaa loo oran karaa xoogiisa hadduu tiknika yahay iyo hadduu aqoon yahay iyo hadduu ay arag yahay waxa ugu xoogana laga wada dheer ay ka qaateen Ruushka ama iyaga tababaray oo jiridooda ahaa Ukraine iyo ciidankeeda qoyga arkaya adduunka meel uga jiray Ukraine sameeyey diyaaradda miiga la dhahdo ee intaasoo dhan laga daway Ukraine وشيء أول ما أنت نقرأ كتابات عالم قرآن كيف بدأ مركز هو حكوا صباحي ده القرآن تقوله يا أول إليه وجوا على سنة لكن كتريا وكذا علي هذا قارب كنت تجارت تسمع فروش خلط بلسي هي ماشي كاس يا ما عنده تروح يسوي أفروش كحد لي ما محكوم ما هي محمد كهن محمد كهن تلو ملا فصلي وحيد هدي الدونيس إلى ذو حكمتي ورت مرك هراء والله أقول هذا أقوله إنه حكمه هي أما هذا سر ماله كتمي ما قرن كرنا هي بتشكا تسوقنا مرك وضياشي إن راشي كي بعدين وعدها لكن راشي أنا سوف فهمي راشي يجوز مفهمي سؤال ما أنت روح يسود دون شينا مركتي واتجن شينا عراض قاعد سمالا ونجيب برجين ندي إله الله بدأ قوته كلا قوتش مكان فروشكي أيضا داسدين أريها سبلا توريها أنت لازم يكون ترتاح وإذا يوكرين بكوف عن إذا الدول أسود إذا سوى أنت الرأس يفك لك عليه وإنه كان وقوت سعوته وقوت ترتوي سما ويا waxaan eegnaa iyadana Puntland ayaa hawlo balaaran ka jira yaasino ilaa intii doorashooyin oo xulashada ka dhacday iyo nin jeclaysiga la waday halka aad ba lagu galgashay khilaafkii shirkii indhood ka socday boosaaso odayaasha iyo u dhaxeeyay iyo Siciidani waa kii aakhirkii soo gabagaboobay waa kii ogolaaday in Maxamuud Abdullahi Diyaano uu sidiisii u ahaada agaasimaha waxaan kula sheegnay in qodobadii kale ah 17% iyo in shirkadda DB World in meesha laga saaro in qodobadaas warqad sharci oo ka soo baxday in ogolaaday inaan ogolaan inaan la arag ama aan jirin wararka qaar baa sheegay xog hoose ayaa waxa leedahay labada qodob si hoose ay u saxaxay odayaasha sida markaa kadibna wuxuu yidhi yaan la shaacinin maadaama aanu aanahay nin doorasho ku jira dagaal labaad haddii aan galo ma heliyo xildhibaano aan kasbado taasna waa taa halkaa waxay ku kala dhinteen gacantiisii midig xasan shire abgaal ninkii kala tage xasan shire abgaal markuu arkay sida xuud wuxuu yidhi aniga iyo galan dagaal badan gelsi dagaalkii markaan dhiigii ka soo faraxaynay ay hadana heshiis saxaada xagga iska wata wuxuu yidhi dani miyadan igula ballamin labadiinu in aad muddo ciidan dhisayseen ciidanku uu 100% ciidan adag yahay oo ina diyaano iyo kooxdiisa gacan ku qaban meena saa ku sheekay Saudi qaban karo ma
يا المدافع يدرونسك يهوبيها الاسكال دعي اي يا عي انا اللي لقيت سنبول لبضانين هل كان مكو كلتين قروتي حسن شراء ابقال هي wuxuu arkay deni nin jifadiisa la soo heshiiyey haye qoladii reer garowna godob ka galay intuu dagaalka galiyay hawsha kaga baxay haye si kasta ha noqotee qisooyinka cajiibka ah waxa weeye maxaa la oran jiray waxa weeye labada day ku heshiisa xaqdaradaas ma hadhowna banaanka kaas isku dagaal doona haye waxa la gaaray heer xasan abgaal airportka garow loo diiday inuu ka dhafo wadigu dhoof lahaa waraday ma ka daayaan wuxuu doonayay inuu cimraysto haye cimradii waa loo diiday airportkii ayaa lagu yiri warqad ma ka wadataa madaxweynaha haye dhaqdhaqaaqa waa xasankii hadda iska fadhoofi jiray soo noqon jiray war balaa dhacday war meera ay garaneen haye maxay noqonaysaa markaa haye in shandadaha diyaaradda aad gashatay soo celisid inaa lillahi waa diyaarad yar shandadii baa odayga la soo hordhigay haye go home baa haye odayaal buu ku qayliyay haye odayaasha waxay la hadleen deni haye waxay dhahan aakhirkii deniyow bal odayga da ilaa bahdalaadaas saaxiibna waa haydane ka daadi ina shida iyo baa soo galay hawsha haye aarinjan ninkii warqad baa loo qoray haye wuxuu ku leeyahay deni 15 cisho oo fasaxa ayuu dibadda ku aadaya 15 days uu soo noqda horta markuu soo noqday xasan shire abgaal uu ka yimid meesha la yiraahdo boosaas oo garaweymi waxanuusaday xanuun baa ku dhacay Allah caafiye inuu inuu is ogyahay wuxuu yidhi nin sheekha ii doona haye sheekha leeyahay oo quraan saara haye armahay ma saa kala ma haye sheekha marka quraan baa marka la saaray haye quraanka markii la saaray next day waatan diyaaradii la soo celiyay haye laga soo celiyay haye ninkii haddana nerves kale ku dhacay ayaa ku dhacay warqadii madaxweynuhu soo qoray isagoo sita ayuu xamar tegey haye markuu xamar tegey ayaa waxaa ka horeeya ninkii loo diidi jiray xildhibaanka duraan baa la yidhahdaa waa nin ka socdaa reer macalin quwaaxiisu waxa weeyaan reer galdogob wasiirka duulista iyo hawada sare I think duraan magaciisa duraan baa la yidhahaa duraan baa wuxuu doonayay xildhibaan reerkiisa ka noqdaa waxa uga dhaartay deni waa kii caradii galdogob iska tagay airport iska xadxadhay diyaaradda moon xagaa kaga soo degaynaa ma jirto show ninkii xarash u hayaba puntlandan iyo xasan abshirkan baskuurimi ayuu airportkii dalaq soo yiri haye ma dhoofi karo ma soo dejiyo odayga saaxiibka xasan shir isku turtuuray balaa ku dhacday wadan kaar baa ku dhacday inna lillahi فتشن بول شندة أقب حاجة صدادي حاجة سيدا يال فريسو ديار تم الراعي تم أضيو وراني هي كنت تلفون بقروي هي أضياش لا سهل هي والمحات طلع والمدير كنكي وزيرك وسياسي قال هي والوزير كصديق لها هذا قبل مركز قروي شوكتي إري يان حلوان لقدر وتولى سوق يلا هي تضرب ساعات أي ديار ديك الرهيب 7 hours نكاد درام با تلفون إيه أفبا وراه للورانه بل نمن تلاتينه بل هورشا قال دما هي دلنا ولا مقالة ديكيه يا هذا ديك تانا حاجة كان نكا هورت الدرانا حل بانمدي سي لو ديدي وصور قصة نكا روكو قصة حسن شيء أبقال وحو تجي ما شاء الله هذا حجك هي إن ووزيرك ماليد يسوي بنجي سلام حاجة سلامة السلام يا سلامة سلامة قروي أيو كسر عصري إن العقل صحوله هي بنجي جواب ودري هي وحيلي مدحونا هديدي إن العقل وصدره $1 إنه وصدر حتى ورزقك كذب قاي وذا قرن يساوي دلين وضي هي حاجكي عمردي أيو شوبه هي سو أي كاردنتين دني oo duraan kala dhinteen oo reer boosaaso ay kala dhinteen oo bangiga asalaam maanta ay kala dhinteen sagana warqad bal soo saaray ilaa oo yaan kala dhiman sida lacagta loo fadhiisiyay ruush in sagana lacagta la fariis garay ya islaha labada nin baa kala fogaan kara ama isdili kara siyaasaddu waa taa halkaasina waa halka haye jabaan maxamed xasan hawshiisii waa tii dhamaatay
kursigiina inaan kale ayaa fadhiistay loo doortay hawshaasi oo dagaal dheer soo gashay halkaasay ku soo afjarantay way dhamaatay waxaa jira Jamaal Maxamed Xasan waxaa la dagaalamay Puntland iyo Somaliland oo isugu tagay waa Jamaal Maxamed Xasan waa nin aqoon-yahana waa nin hore u soo shaqeeyay hay'adaha qaramada midoobay la soo shaqeeyay safiir soo ahaa waxa soo waxaan xasuustaa markaa isagoo waa Jamaal Maxamed Xasan Jamaal Ali Xuseen oo Somaliland isagana waxaa la dagaalamay Somaliland iyo dowladda Djibouti ونو كل سوق تجي جمال ولا سوق تجي جمال الذي أورد جمال الذي ولد تك قاضي والله دقال أيه دقال اللي بدو ما علي جمال الحسين جمال معاه سلبه والله من أردنيرة أقوني هنا أقون تودي وطا oo laga baqay in aqoontooda ay inay dad dhibaato ku hayso wasaaswi oo madaxda meesha oo arma meesha laga qaadaa arma ninka la jeclaa arma ninka dalkii wax tara wasaaswi marka labada Jamaal iyana waxa weeye dagaalka labada dagaal baa helay laba dhinac le ayaa ka socda wasaas doorashooyinkii wala soo aftaray way dhadhowyiin nin waliba ninkii uu rabay ayuu soo doortay garow waxa loo fadhiyay maalmahan u dambeeyay tan ka bixin garow Siciidani oo beesha Cumar Maxamuud laba kursi oo ay dooranayeen saddex bin buu soo jeeday inna lillahi labada kursi isiya halisi doorashan galiya may baa leeyahay hadaba mid siibo waa laga diiday uu soo noqday hadaba wuxuu yiri hadaba qoondadii gabdhaha igu yare labadaba gabdha ka dhiga gabdha igu bedela waxa aqalka sare ninkii aad geysay ayaad maaragtay aan ku dhaafnay wad nuu khiyaamis dadkii iska lahaa ayaa dooranaya labada kursi mid laba jifaa la wadaajiyay midna jifo ayaan u qoondaynay marka hawshaas dadkaas u taalaay hana wareerin ninka waa murdlaacay wabaha gabadhan hadda siibo tiinoo laga dhaartay ruuxa ku dhacay karba ku dhacday halkaas ayay maraysaa horta sheekadoodii beesha dhexe dariiqba iska marayaan ninkan waayahay haddana wuxuu ku dhegay oo ina soo baxday gabadh iyana sanadkii horena ku jirtay oo beesha Carab Saalax ka socotay oo Saacadii Salaad la yiraahdo reer Minnesota ayaa doonaysa mar labaad inay soo laabato waa ku doonaya wiyaadiga waana ka soo horjeeday farmaajo dadka jecel yahay isagii isku xahay may diiday u koori yiri waran isku khilaafta suldaankii baa horta diiday suldaankeedii oo yiri jifo kale ayaa doorkan iska leh ninkan markii la hadlana oo la yiri gabadhan waa gabadh siiriga afuufeysay farmaajo ka soo horjeeday wuxuu yiri niyo gabadha ma aamin karo oo bari ka maalin ay anigu afuufi kartaa بوليس كم صار دورة كرا هذا صاحب كده أو فريم بيلقوا صادر تيسون كسماية الحمد لله سوى فريم بيجي لو حبوا صادر أي صادر كانوا كريبية فريم براد يلا كلاريبي مركا نكني فريم براد وكلاريبي فريم بيجي هو كلاريبي ماشي هو كريبي مركا ده حسن شيرو حيكون سي كلا تجان حبين للدولة إن لقى دورته كسمايو أي سودان كيسي يو سودان كي نكلا حسن شيرو أي أحمد الله والله حلين إنن شيفو يدنا أبكر عيسى إن لو قندي ساسوي نكي أحمد الله وديدي هي وحلو حلو عياري حسن شرفتي سودانك أن لا هذا الدنيا ونكن صاحب كتير أحمد الله الباش هوس بسعته أحمد الله والله حلي نو واي بيقول نين هالكن دجن أيان هوش أو قنديني يدا حبض ما بقروا إنه صدر سن حدود أي ساوي جوابي حسن شرادنا وحيري حدي نيكي أن وذني لديدي ميت كلاس نفيرك أو هالكن شوبه أينو نصي أدفات دين هذا نيكي والله هي وحلو بروح يا شاه وبدلوه كان كلا وتاني قروا شوبه وطر إبن لا سي تينو كدارتي هي أحمد ذوبي هي حسن شراء وكوير الدني وكما قبل كروه هي أنا قاعد درت أرتو هالك أولو كرتي هي وياي وحصارت صباحي دبات كان يقدر يقبل كسر يعني دبات
hadhowna marka la soo fadhiisto oo la dooran doono madaxweynimada yaasiino adoo keensaday 20 xildhibaan ayaan hubin in 20ku ay kooran doonaan yes haba ka yaab ma hubtid way soo bixi doontaa marka la gaaro xilliga doorashada waxaan doonayaa inaan ka hadalno dadka waxaas u soo baxeen ee la doonayo ummad masiirkeed inay gacanta ku dhigaan anu waxaan aaminsanahay in la goynayo shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan every 4 years after sida markii mar la gaaraba inay dad noocaasa ay soo urursadaan gobol u gaar ma jirto waxa jiray nin odaya ayaa waxa lagu yiri carruurtaada waa mise marka wuxuu yiri 3 wiil baan dhalay waxa lagu yiri xagee kala jiraan wuxuu yiri 2 Yurub bay jiraan labada Yurub joogta halkan waxa la jooga buu mid tuuga oo dadka ay soo xado oo isagu guriga jooga marka waxa la yiri oo ka tuuga maxaad u soo xareysatay maad erid isaga reerka beela buu isaga wax ka helaa labada kalena salaanta iskama qaadin ka tuuga ayaa wuxuu soo dhaco dabka ku shidanaya wuxuu yiri hadaba tuugi ayaa ilaahay amarkii sanadkan wuxuu helay xildhibaan mar la soo laabtay marka xildhibaan ma hayna tuug caadi ah waxa dukaanada ay guryaha ka soo xaday ayuu oday u karin jiray marka wuxuu yiri imika xildhibaan buu noqday wakaas waa ku sii daray xildhibaankaasi yaasiino gacantii wax qaad barataa ma joojisay tuugnimada mi joojin doona ma ay soo joojin oo xildhibaan buu tuugu yahay haduu rag caynkaas ku jira meesha rag badan baa ku jira oo wax badan ummadda Soomaaliyeed aan tarayn oo wanaaga aan tarayn baa ka baxa meesha wasaas intaasina waa inta barnaamijkeena maanta oo koobana waxaan ku daraynaa oo qodobka ku soo gabagabeynaya uu yahay Jubaland ilaahay oo naxariisto waxa meydkiisii la helay xildhibaan lagu magacaabo Maxamed Kuulow 8 nin oo ka soo baxay Jubaland Kismaayo oo Axmedoobe ma soo bixin Axmedoobe doortay oo yiri difaaca ayaa Kenya waxa tiri 8 ama aamin karana loo keena aan tareen garan Kenya gacanta u galiyay wadiga fahmi waayeen bars may in meel kale ka aadan bay ama hadhow isbedelaan ayuu Kenya ka baqaysa waa sax 8 nin ay hotel meel ku xiristay oo security wadi ay hor dhigaan 8 nin waxay ka dhaadhicinayaan mabaadiida iyo afkaarta Kenya aaminsantahay in xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ay yihiin 8 nin oo wakiil uga ah Kenya baarlamaanka Soomaaliya warta lagu baayay oo wajiyadooda Soomaaliya noqdaan laakiin qalbigoodu uu Kenyaati yahay noqonaya raga aan ka ahaa ayaa xal meedkiisa hodaalkii laga helay ninka odaga ilaahay u naxariistay Maxamed Kuulow ayaa la oran jiray Maxamed Kuulow toddobaadii u dambeeyay nin weyn uu ahaa ayuu ka yaab wax meesha loola imanayo waa fajay dabeetana uu ka horreeyay أنا أوراني مكا أحمد الله بدري يسوى حلو بدري دتك خلاص صباحا عدي دشي لكن موقف وتاجنا وجدا بي أي وحها إنه كسر جنستي وحن أي وطن كنياتو أو الصومالي نبا ولا يقول أنا أقول وين بانها حلبان وانا MP ساسا إلى قمان وساسو يا أرتش تدور ذيك هاي أيام قرية كتيرة طلاي وأنا لصص على مثل بعض يمس حابة وإيمان سا أنت دورشنا بالجان إن ده فرح اللي جليو وأما يجو كيناتي أي كتاب مران والحاجة تكان أما الخارجي حديد ضمير أي شان الخارجي أساس برامج كنين ما أنت سأكسوك بياسين وي على هذه ما سنتين مرة بعد يمر سد حد بقى وأنا جوا ياسين تعال وإحنا كتير يا سيدا أيوه النبات جليو